وعنا ونكسن داوديال كنا سودواد غيب كلو كميدا برنامجيدان ku eegno dadkan wax ka baran karno dadaalada ay noloshooda sameeyeen waxaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa xoogsato muruqooda shidaal ku baaraya markaad maqasho shidaal waa hubaalinay markiiba maskaxdaada ku soo dhacayaan dalal iyo boqorro ka taajiray waxa laga yaabaa inaanad weliga ka fikirin inaad gacantaada ceel shidaal ku qodato sida kuwa badan oo inaga midi ay celil biyaha laga cabo gacantooda ugu qotaan haddii ay maskaxdaada ku soo dhacday mararka qaar inaad ceel shidaal gacantaada ku qodato kelida kuma tiid arinta kumanaan muruqmaal oo dadka wadanka Miami ayaa ku hawlan arintaas barkood wayba ku guuleysteen oo shidaali gacantooda ku qodeen ayayba qarka u saaran yihiin inay ka taajiraan kuwa kale badanna waxay hirdan ugu jiraan sidii uga taajiri lahaayeen shidaali gacantooda kula soo baxaan waxaana kamida Miyachi. Das haben Sie bestimmt noch nicht gesehen. Schauen Sie mal. Sie klettern ungesichert in großer Höhe und bohren tief in die Erde, um an einen der wichtigsten Rohstoffe zu kommen. waxay kuriyeen salaanadan dhaadheer yaan lugahaada ku taagnayn dhulka ay hoos u daloolinayaan iyagoo baadigoob ugu jira helista mid ka mid ah khayraadka dhulka hoostiisa ku jira kuwooda ugu qaalisan. Vor 2 Jahren ist ein Arbeiter auf dem Feld abgestürzt. sanad ka hor mid ka mid ah shaqaalaha iyaga ayaa halkan ku dhintay waxuu ka soo dhacay halka ugu sarreysay ee rakada dharkiisa biraha ayaa la hadhay waxaanu u dhintay uu naftiisa u waayay isagoo baadigoob ugu jira helista dhibco yar oo shidaal ah. Heute ist Miyajis großer Tag. maanta maalin weyn ayay uga dhigan tahay Miyachi waxa uu leeyahay ka hor intii aanan shaqadan bilaabin waxaan ka shaqayn jiray moofo doorshaha lagu sameeyo keegaga dhalashooyinka ayaan qurxin jiray oo magacyada dadka soo dalbadaan ugu qori jiray sida iyagu rabaan. Aber ich wollte ein reicher Chef werden. balse waxaan rabay inaan noqdo maamule maalqabeen ah waxaan bartay sida shidaalka loo qodo gobolka midle ee bartamaha dalka Myanmar waa gobol sabool ah dadka ku nool waxay noloshoodu ku tiirsan tahay xoolo dhaqasho iyo falashada beeraha sidoo kale 10 kun oo kamid ah bulshada halkan ku dhaqan ayaa ku hawlan baaritaan shidaal iyagoo adeegsanaya gacmahooda bare iyo mashiina macmal ah isla halkan ayuuna ku yaala buulka uu degan yahay Miyachi iyo 8 shaqaalihiisa kamidi. Nur wenige Meter hinter dem Ölfeld lebt Miyaji in seiner kleinen Hütte, gemeinsam mit 8 Arbeitern. Vor einem Jahr ist er hier. sanad ka hor ayuu halkan u soo guuray isagoo beegsanaya shidaal si uu uga taajiro maanta ayaana laga yaabaa inay riyadiisu run noqoto. Ich musste waxaan mahradayda uga yimi qoyskayga waxaanan halkan ka baarayaa shidaal ku noolaanshiyaha goobtan cidlada ah maaha mid wanaagsan balse riyadayda ah inaan maalin helo shidaal aan ka taajiro ayaan halkan u joogaa ka hor inta uusan si madax bannaan u bilaabin hawsha baaritaanka shidaalka waxuu la shaqayn jiray kooxo kale oo ku hawlan baarista shidaalka inse uu si iskiya u shaqaysanaya isagoo ay shaqaale u shaqaynayaan waxay uga dhigan tahay guul xataa hadduusan weli gaadhin helista shidaal uu ka macaasho halkan ayay isaga iyo 8 shaqaalihiisa ku yihiin dubbood. Seit ich eine Maschine zum Bohren besitze, kann ich mir tani selbst intii aan helay mashiinada wax lagu qodo waxaan awoodaa inaan kolba meel ka qodo ceel cusub maanta waxa uu dhameeyay qodista ceel cusub inse uu saliid ka heliya in kale weli lama oga isagu rajo fiican ayuu qabaa xataa haddaysan maanta noqon inta shaqaalihiisu ay ku hawlan yihiin dhamaystirka ceelka cusub isna waxa uu dhala ka soo dhaaminayaa ceelal hore ugu qoday kuwaasoo habeenkii xoogaa saliidi ka korarto inkastoo oo aysan ahayn wax ku filan riyadiisa taajirnimo. Da oben ist eine Umlenkrolle. Und gerade darunter tan waa raka 3 lugood leh halkan ayaa ah salaankan ka fuulo birta sare ee ku muuqatana waa shukantan ku maamulo tuubooyinka ceelka saliida ka soo saara waa farsamo sahlan isaga soo ugu filan inuu shidaal soo saaro waxa ugu culus uu baahan yahay waa mashiinka xadhkaha iyo tuubooyinka ceelka shidaalka ka soo saaraya xadhkahana laaba. Das Spezielle an der Region rund um Minla: während Erdöl meistens Hunderte bis Tausende Meter unter der Erde vorkommt, liegt das schwarze Gold عادياً 800 إلى 1,000 متر markii dhulka hoos loo qodo ayaa shidaal la gaadhaa balse halkan Miami 150 mitir oo kaliya ayay u baahan yihiin
in dhulka hoos loo daloosho si ay saliid u gaadhaan. tuubooyinkan ayaa habeenkii soo nuuga shidaalka. marka hore biyaha ayay soo qaadaan, shidaalkuna xagga sare ayaa u maraa. shaandhada keliya uu miyaaji adeegsanayana si uu biyaha iyo shidaalka u kala saaro waa gacantiisa. maaha mid sahlan, waxaana laga qaadi karaa xanuuno badan oo kansarku ugu daran yahay, isagase uma muuqato. markasta biyaha ayaa soo sarreeya maadaama ay saliidda ka culus yihiin. markay biyuhu dhammaadaan ayay saliiddu imanaysaa. Und dann geht's wieder von vorne los. Während Miyagi Rohr für Rohr seine Erdölquelle leert, bohren seine Arbeiter 100 Meter dhanka kale shaqaalihiisa ayaa muddo 3 cishaha ku howlan qodista ceel 150 mitir ah. hadda ayuuna gabagabo ku dhow yahay. Miyagi waxa uu qabaa rajo cusub oo ah inuu helo saliid uu ka taajiro. talidiisa maaha kumanaan kale oo reer Miyaama ayaa sidan oo kale badigoob ugu jira saliid ay ka taajiraan. sanadii 2008 ayuu dalka Miyaama ka baxay gacanta kale talisnimo. dimuqraadiyad iyo nidaamka asxaabta badan ayuu dalku qaatay, waxaana ay taasi markiiba soo jiidatay shirkadaha shidaalka baadha iyo maalgashi shisheeye. goobaha shidaalka dalkaas u ceegagana waxa markiiba xadhay shirkadaha waaweyn, balse dhulka aysan badnayn kheyraadka iyo shidaalka ku jira waxa looga tegay xoogsato maxalliya kuwaas oo muruqooda shidaal ku baadhaya. sidaas oo ay tahay haddana waxay xoogsatadani ku qasban yihiin in dhulka ay ceelasha shidaalka ka qodayaan in marka hore ay ka iibsadaan dadka dhulka iskale, iyaga oo aan ka warqabin inay shidaal ka helayaan iyo in kale. Miyajina 3 ceel hore ayuu qoday, wuxuuna maalintii soo saaraa 20 litir oo shidaal ah. waa wax aad u yar marka la eego qiimuhu ku iibinayo, kana fog riyadiisa inuu maalin u helo shidaal uu ka taajiro sida boqorada carabta oo kale. balse marnaba ma doonayo inuu isdhiibo. ceelka cusub ee uu maanta daahfurayana waxa uu ka qabaa rajo fiican. waxa uu ka ag qoday meel ay hore shidaal badan uga heleen kooxa kale. Ein neues Loch zu bohren ist sehr abenteuerlich. Wir können nicht in den Boden reinschauen, darum wissen wir auch nie. markaad ceel cusub qodayso waxaad ku talagelaysaa guul iyo guuldarro, sababtoo ah waxa dhulka hoostiisa ku jira ma arki karno. waa inaad ku xisaabtantaa waxel iyo waxwaa labadaba. markii ugu horreysay ee dhulka shidaal laga qoda waxay ahayd sanadii 1859 dalka Mareykanka Chatsville, waxaana hindisay qaabka loo qodi karo qaabid Urban Eldred. mashiin nooca dhuxusha ku shaqeeya ayuu ku xidhay bir xadiida oo dhulka hoos u garaacaysa, taasoo maalintii awoodday inay qodo 1 mitir. muddo 20 cishaa markuu qodayna 20 mitir waxa uu gaadhay saliiddii ugu horreysay. isla farsamadaas qadiimka ah ayay maanta adeegsanayaan xoogsatada reer Miyaama. xoogaa yaroo horumarin ayay ku sameeyeen. birta dhulka daloolinaysa ayay ku xidheen mashiin ciidda soo nuugaya kana dhaqso badan tii uu qarnigii 19aad adeegsanayay khabiirka Edvan. waxay awoodaan muddo 3 cishaa inay ku dalooliyaan ceel dhererkiisu yahay 150 mitir. balse dhammaan qalabka kale iyo tambooyinka ay adeegsanayaan waa farsamooyinka qadiimiga ah ee dunida laga adeegsanayay bilowga qarnigii 19aad. si kasta way u tahay xaalad adag, haddana xoogsatada halkan ku sugan kama rajo dhigaan. Es gibt viele Probleme, wenn wir nach Öl bohren. Ein Rohr könnte zum Beispiel brechen oder unter der Erde liegen bleiben. Wenn wir es nicht bergen können, bleibt uns nichts anderes übrig als ein neues. dhibaatooyinka ugu badan waxaanu la kulannaa markaanu ceel cusub qodayno. mararka qaar mashiinadan qadiimiga ayaa naga jaba ama birtaan ku qodayno ceelka ayaa ku dhex jabta. markii xaaladaasoo kale ay dhacdana ma haysano fursad aan ka ahayn inaan goobta isaga tagno doonanana ceel cusub iyo dhul cusub, sababtoo ah biraha dhulka hoostiisa ku jaba kama soo saari karno. waxaase ugu daran ee dhici kara waa inuu jabo mashiinka dhulka daloolinaya, kaasoo kan kaliya ay shaqadu ku wadaan uguna qaalisan qalabka ay tan iyo hadda haystaan. ka hor intaysan ceel qodin waxa uga baxaa qarashaad iyaga ku adag. goob kastoo aad ceelka qodayso waxaad u baahan tahay bixinta $600. mid kastoo ka mid ah shaqaalihiisuna waxa uu bishii ka rabaa $300. waxaasoo qarasha waxa uu Miyagi geliya isagoo aan ka warqabin in halka uu qodayo uu shidaal ka heli doono iyo in kale. si uu dhibaatooyinka uga nabad galo waxa uu magansadaa sanab uu khudaar ka sameeyey una ekeysiiyey kan weyn ee buudhiisanku ay caabudaan ee buuda. haddiise ay noqon weydo oo uu waayo waxa uu baadigoobayo khudaarta ayay dub isaga cunaan iyagoo sanamkooda dub u raashinta. Götter soll helfen, damit Miyagis Bohrung ein Erfolg wird.
inay si taas maanta dhiciya in kale weli lama oga rajo ayaanu qabaa Miyaaji waa dhagxaan qururuxa iyo ciid niisa waxa soo baxaysa waxaana ka uraya shidaal waa calaamad fiican riyadiisa ayaa sii xoogsanaysa wasakhaynta deegaanka iyo nadaafad darrada ka jirta goobta uu ku nool yahay agtiisa wax weyn kama sii ahaa maalintii hal mar ayuu goobtan yimaadaa dilaal shidaalka ka iibsada xoogsatadan isaguna uu sii iibgeeyo warshado kale oo shidaalka lagu safeeyo qaybta dambe ee sheekada ay daawada ku ogaan doontaa halkay rajada Miyaaj ku dambayso iyo inay suuragal tahay inaad muruqaaga shidaal kula soo baxdo intuu doonaba hal leekaadee tan iyo sheekada qaybteeda dambe nabadgelyo